عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. رواه البخاري ومسلم. waxaa laga soo wariyay Abi Hurayra radiyallahu anhu inuu nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam ilaahi ayaa yiri azza wa jalla amal walbo in aadan sameeya isaga iska leh soonka mooyee anaana ka abaalmarinaya qofka sooman soonkuna waa gaashaan midkiina maalinta uu sooman yahay yaanu afxumoonin oo yaanu qayqaylinin hadii uu qof aayana ambase uu la dagaalamo ha yiraahdo waan soomanahay waxaan ku dhaartay Allah nafteedu gacantiisa ku jirtee isbedelka qofka sooman afkiisa ku dhasha gaajada iyo soonka dartiisa ayaa kaga caraf badan Ilaahay agtiisa maalinta qiyaame cadarka miskiga ah waxaa soo saaray Bukhari iyo Muslim.